kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa caasimada TV qodobada wararkana waxay kala yihiin ra'iisul wasaare Roble oo 3 qodob ka dalbaday dawladda Masar xilli uu booqasho ku jooga dalkaasi waxa kale oo la filayaa in Roble uu booqasho ku tago dalal kale oo Carabeed qodobada kale ee wararkana ku jira waxa kamid ah madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo si weyn u difaacay go'aanka uu ciidamada dalkiisa uga saaray Afghanistan Taliban oo cafis u fidisay saraakiisha Afghanistan iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda dalkaasi ayaad warkana ku daawan doontaan madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo loo ogolaaday inuu tago magaalada Beledweyne xogtii ugu dambeysay go'aan ay qaateen beesha degta Beledweyne ayaan warkana idinkugu hayaa iyo kaluumaysato ku dhimatay xeebaha gobolka Jubbada Hoose iyo Jubbaland oo ka hadashay qodobadaasi oo dhan ayaan ku faahfaahin doonaa wararkeena haddaad nagu cusub tahay daawada subscribe saar YouTube-keena furo gambalaalka si aad ula socoto wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka u diyaar garoowa qodobadii aad daawateen oo faahfaahsan markale kulanti wanaagsan aan ku bilaabay war degdeg ah oo haddana soo gaaray gudoomiyaha deegaanka Garisbaale ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qarax lagula eegtay magaalada Muqdisho allaha u naxariistay Maxamed Abuukar Afrax ayaa xilliga qarax lala beegsanayay gaariga uu saarnaa waxa uu marayay inta u dhaxaysa degmada Kaxda iyo deegaanka Garisbaale mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Garisbaale ayaa inoo xaqiijiyay geerida gudoomiyihii deegaankaasi waxaana jira sidoo kale dhaawac ka dhashay qaraxaasi 30kii bishii May ee sanadkan ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu Maxamed Abuukar Afrax u magacaabay gudoomiyaha deegaanka Garisbaale isagoo bedelay gudoomiyihii isaga ka horeeyay ee Cabdiraxmaan Axmed Cali Garyare oo isna qarax lagu dilay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdiga ku wehelinaya booqashada uu ku joogo dalka Masar ayaa kulan laba geesood ah la qaatay ra'iisul wasaaraha dalkaasi iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada Roble iyo wafdigiisa ayaa kala hadlay ra'iisul wasaaraha Masar Mustafa Madbuuli oo ay weheliyaan wasiirada waxbarashada iyo arrimaha dibadda ee xukuumadda Masar wuxuuna ka dalbaday 3 qodob oo kala ah sidii kor loogu qaadi lahaa doorka ay ku leeyihiin dalkaasi waxbarashada Soomaaliya iyo sidii loo kordhin lahaa deeqaha waxbarashada ay siiyaan ardayda Soomaaliyeed fududeynta socdaalka dadka Soomaaliyeed ay ku tagaan dalka Masar iyo fududeynta ganacsiga labada dal iyo maalgashiga Masar ee Soomaaliya labada dhinac waxay iska xog wareysteen muhiimadda xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeya labada dal iyadoo ra'iisul wasaare Mustafa Madbuuli uu bogaadiyay xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo hogaaminta ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ee arrimaha doorashooyinka dalka booqashada rasmiga ah ee ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ay ku joogaan dalka Masar ayaa qaadanaysa muddo 3 maalmood ah taas oo kulamo kala duwan uu la qaadanayo madaxda iyo mas'uuliyiinta ugu sareysa dalkaasi safarka Roble waxa ku weheliyay wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Abuukar Xaaji iyo mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha dawladda dhinaca kale xogaan helayno ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu ku wajahan yahay dalka isu tagay Imaaraadka Carabta oo madaxweyne Farmaajo uu 4 sano ee la soo dhaafay meeshii ugu xumeed taariikhda ay kala gaareen sida ay cadeynayaan xogo aan helnay ra'iisul wasaaraha ayaa casuumad rasmi ah ka helay amiirka Imaaraadka Carabta Sheekh Khalifa bin Zayed Al Nahyan waxaana la rumaysan yahay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu Abu Dhabi u socdaali doono ka hor inta aysan dhammaan bisha Agoosto ama ugu dambeyn bilowga bisha September madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisii koobaad ee uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Khayre ayaa geeska geliyay dawladda Imaaraadka Carabta waxaana la kala diray 100 askari oo ay tababareen Imaaraadka Carabta isla markaana ay bixin jireen mushaarkooda iyagoo fulinayay heshiis is-afgarad ah oo kor loogu qaaday iskaashiga military oo labada dal dhexmaray 2014 Imaaraadka Carabta ayaa faraha kala laabtay arrimaha Soomaaliya kadib markii booliska Soomaaliya ay qabteen lacag ku jirtay 3 boorso oo aan calaamad lahayn oo saarneyd diyaarad lagu magacaabo Royal Jet taasi oo dawladda federaalka ay sheegtay in ay u socotay xubno ka tirsan mucaaradka bishii Abriil sanadkii 2018 sanadkii 2019 dawladda Imaaraadka Carabta waxa lagu eedeeyay in ay ka dambayso hurinta xasaradaha siyaasadeed ee Soomaaliya kadib markii qaar ka mid ah dawlad goboleedyada sida Jubbaland iyo Puntland ay si weyn kaga soo horjeesteen dawladda dhexe
dekadda Boosaaso iyo Berbera ayay ku sameeyeen horumarin isla markaana Imaaraadka Carabta ayaa qarsan waayay damacuda ku aadan inay doonayaan saldhig military oo ay ka furtaan Somaliland. dhinaca kale waxaa jira warar sheegaya in ra'iisul wasaare Rooble uu sidoo kale casuumaad ka helay amiirka dalka Qatar Sheekh Tamiim bin Mohammed Al Thani kaasi oo siyaasadda Soomaaliya si weyn ugu lug lahaa 4 sano ee la soo dhaafay. safarada dibadda ah ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo dalka uu ku jiro marxalado doorasho, waxaana xubno ka tirsan xafiiska Rooble inoo xaqiijiyeen in ra'iisul wasaaraha uu ku soo aaday xilli ay jirto lacag la'aan baahsan isla markaana beesha caalamka lacagta ugu badan ee doorashada ay bixinayso. Rooble ayaa horay ugu socdaalay dalalka Sacuudiga, Djibouti, Ingiriiska, Kenya iyo dalka Masar oo uu hadda ku sugan yahay, waxaana la filayaa inuu dhowaan ka dego dalka Imaaraadka Carabta. haddii aynu eegno xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Afghanistan, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa difaacay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan isagoo oo sheegay inuu weli ku adkeysanayo siyaasaddaasi ayna tahay xilligii ay ka tegi lahaayeen dalkaasi 20 sano oo dagaal ah kadib. waxaan ahay madaxweynaha Mareykanka, mas'uuliyadana aniga leh, ayuu yiri Biden oo khudbad aad loo sugayay ka jeediyay aqalka cad ee Mareykanka kadib maalmo uu ka aamusnaa xaaladda Afghanistan. Joe Biden ayaa sheegay inuu si qoto dheer uga murugooday sida xaaladdu isu bedeshay, wuxuuna ballan qaaday inuu difaaci doono xuquuqda haweenka Afghanistan oo hadda wajahaya soo laabashada xukunka Taliban. hase yeeshee wuxuu si aan gambasho lahayn ugu adkeystay inuusan ka qoomamaynin soo saarista ciidamada Mareykanka, inkastoo si aad ah loogu dhaleeceeyay qaskii ka dhacayay halkaasi maalmihii la soo dhaafay. waxaan si buuxda u taageersanahay go'aankayga kadib 20 sano si adag ayaan u bartay in marnaba aysan jirin waqti wanaagsan oo la soo bixiyo ciidamada Mareykanka, ayuu yiri Biden. madaxweynaha Mareykanka ayaa qirtay in dawladda Afghanistan u burburtay si ka degdeg badan sidii uu filayay, wuxuuna soo jeediyay inaysan lahayn rabitaan ay kaga hortagaan Taliban. runta ayaa ah inay u kala furfurmeen si ka dhaqsi badan sidii aan filayay, ayuu yiri. Biden ayaa ugu dambeyn digniin culus u jeediyay ururka Taliban inaysan arbushin ama aysan halis gelin daadguraynta kumanaanka qof ee isugu jira diblomaasiyiinta Mareykanka iyo turjumaanadooda reer Afghanistan ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee Kabul. haddii aan ku sii socdo wararka Afghanistan la xiriira, kooxda Taliban ee sida buuxda ula wareegtay gacan ku haynta Afghanistan ayaa ku dhawaaqday cafis guud oo loo fidiyay mas'uuliyiinta dalkaasi. bayaan ka soo baxay hoggaanka Taliban ayaa waxa lagu sheegay in cafis loo fidiyay saraakiishii iyo mas'uuliyiintii la shaqeynayay madaxweynihii cararay ee Ashraf Ghani. sidoo kale kooxda ayaa ku boorisay saraakiishaasi inay dib ugu laabtaan shaqooyinkooda iyaga oo qaba kalsooni buuxda sida lagu sheegay bayaanka. go'aanka ka soo baxay Taliban oo muddo 20 sano ah dagaal ka waday Afghanistan ayaa dad badan la yaab ku noqday, weliba sida ay u wada shaqeyn karaan mas'uuliyiintii iyo saraakiishii ciidamada dawladda ee ay dagaalamayeen muddadaasi aadka u fog. sidoo kale Taliban ayaa waxaa lagu xasuustaa inay caan ku ahayd fulinta dilalka ciqaabta ee arxandarada ah, iyada oo horay loogu eedeeyay inay geysatay dambiyo dagaal. si kastaba tan iyo markii Taliban ay gudaha u gashay Kabul, waxaa sii kordhayay cabsida dadkii la shaqeynayay dawladdii dalkaasi ka jirtay ee ciidanka Mareykanka, waxaana jira 100 qof oo laga daadgureeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul. dawladda federaalka Soomaaliya ayaa markii u horeysay ka hadashay xaaladda ka taagan dalka Afghanistan, taasi oo ay gacan ku haynteeda la wareegtay kooxda Taliban. wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Jaabiri ayaa sheegay in dhacdada Afghanistan laga baran karo sida ay waxba u soo kordhinaynin joogitaankooda ciidamo ajnabi ah, sida uu hadalka u dhigay. waxa uu xusay in 20 sano dawladda Afghanistan lagu bixinayay waqti iyo qarash badan, haddana ay ugu dambeyntii u gacan gashay kooxda Taliban oo si weyn ay isku hayeen, taasi oo la fahamsan yahay inuu ula jeedo in taageerada caalamka ay waxba soo kordhinaynin haddii gudaha la isku duubnayn. dadka qalafsan ee nagu dhex jira ee naga fikir duwan ee marna aan raali laga wada noqon karin in meel looga soo wada jeesto oo aqoon-yahanada Soomaaliyeed ay ka sii digaan baaritaanna ka sameeyaan arrintan ka dhacday Afghanistan, ayuu yiri. sidoo kale waxa uu sheegay inay muhiim tahay in shacabka Soomaaliyeed ay dawladooda garab istaagaan, isagoona ka digay in dalkeenna ay ku imaan karto arrin la mid ah mid Afghanistan haddii aan laga fikirin
oo laga hortagin sida uu hadalka u dhigay. ugu dambeyn waxa uu soo jeediyey in baaritaan lagu sameeyo ciidamada dawladda si uusan cadowga uga faa'iideysan isla markaana ay horseedin in dalkeena uu ka dhaco waxa hadda ka socda Afghanistan. hadalka wasiir dawlaha ayaa imaanaya xilli si weyn loo hadalhayay waxa dhici kara haddii ciidamada AMISOM ay ka baxaan Soomaaliya inkastoo ay duruufaha ku xeeran labada wadan ay kala gedisan yihiin. madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Gudlaawe Xuseen ayaa la rajeynayaa inuu tago magaalada Beledweyne maalmahan ugu soo wajahan kadib markii beesha u badan gobolka Hiiraan ay ogolaatay in waan laga galo khilaafka muddadan jiray. xildhibaano hore siyaasiyiin iyo waxgarad iskaashaday ayaa ka shaqeeyay socdaalku Cali Gudlaawe ku tagayo magaalada Beledweyne oo uusan cagta saarin tani markii loo doortay madaxweynaha Hirshabeelle. madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar ayaa hore u sheegay in madaxweynaha maamulkaasi Cali Gudlaawe oo loo diido imaanshiyaha Beledweyne ay keenayso in aan doorasho lagu qaban xarunta gobolka Hiiraan ee Beledweyne. inkastoo Yuusuf Dabageed uu isku dayayay inuu xoog ku maquuniyo ninka hogaaminaya jabhadda ka asaasan Hiiraan Generaal Xuud, haddana taasi ma suuro gelin. waxaase hadda muuqata in ay jirto isku soo dhawaanshiyo wada hadal iyo wada xaajood ku timid. Gudlaawe ayaa Axmed Madoobe kala mid ah dalabka ku aadan in hal magaalo lagu soo koobo doorashooyinka, hase yeeshee booqashadiisa Beledweyne ayaa fududeyn karta isfahanka madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyo bulshada ku nool Hiiraan. madaxweyne Farmaajo ayaa bedelay nidaamka awood qaybsiga Hirshabeelle isagoo ka leh ujeedo doorasho, wuxuuna ka dhigay madaxweynaha mid isaga taageersan oo kuraasta xildhibaanada federaalka gacanta u gelin kara. qaybihii ugu dambeeyay ee wararkeena ayaan soo gaarnay. wararka ka imaanaya Jubbada Hoose ayaa sheegaya in saacadii la soo dhaafay xeebaha gobolkaasi ay ku dhufteen dabaylo xoogan oo sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo burbur hantiyadeed sida ay shaacisay Jubbaland. dadka dhintay ayaa ahaa kaluumaysato waxaana la qalibmay doomihii ay saarnaayeen halka uu burbur xoog leh soo gaaray guryo ka agdhowaa xeebta magaalada Kismaayo. wasiirka wasaaradda kaluumaysiga iyo kheyraadka badda ee Jubbaland Cabbaas Cali Ibraahim oo ka warbixiyay khasaaraha ka dhashay dabaylahaasi ayaa sheegay inay qalibmeen 11 doomood kuwaasi oo sababay dhimashada ilaa 5 qof oo kaluumaysato ah. halkaasi ayaan ku hakinayaa warkii aad ka daawanayseen Caasimadda TV. waad ku mahadsantihiin daawashadii la socodka wararkeena. waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo.